Allah ha u naxariistee Raage Maxamed Caabi waxa saaka aroortii hore lagu toogtay bartamaha wadada weyn ee dhexmarta magaalada Brisbane ee dalkan Australia. Aabihiis Maxamed Caabi ayaan qadka telefoonka kula hadlay waxaana ugu horeen aan weydiiyay wiilkiisa booliisku sababtay u toogteen. Dad baana soo wacay oo yiri qof baa lugeynaya meel highway-ga dhinaciisa arintaas waxa ma garanaysaa loo baahan yahay inay booliisku wax ka qabtaan. Sidaa darteed ayay booliisku meesha ma garanaysaa u tageen oo ay ninkii ma garanaysaa wiilkii oo wadada socda oo si nabadgelyo ah isaga socda meesha uu ku socdayna ma ayna ahayn meesha baabuurta marto waxay marahayay line-ka muxuu ahay loogu talagalay dadku inay maraan markaasay joojiyeen oo ay dhaheen muxuu ahay waxaan rabnaa inaan markay joojiyeen ayuu wuxuu diiday in uu la hadlo socodkiisii iska sii watay marka waxaa la sheegay hadda kaamarooyin iyo information soo baxaya oo dad baabuur watay ay soo duubeen in uu ka cararayay oo uu yiri jeebka gacmaha gashaday oo uu dib ooga durkay si aynan ma garanaysaa ugu muuqanin nin la dagaalamaya laakiin ay iyagu ku siqeen ayna damceen ma garanaysaa in ay xoog ku muquuniyaan iyagoo aan la hadlin markaana ay toogashadii sidaa ku bilaabatay. Aroor horaa la dilay sida la sheegay 6 aroornimo halkaas muxuu ka qabanaya marka isaga ninkan waxa weeyaan booliiska dhibaato fara badan bay ku hayeen waxyaabo fara badan oo eedeymo ah oo uusan qabin oo unsubstantiated oo ma garanaysaa aan wax muxuu ahay markhaati iyo wax cadeymaha ayna jirin bay maagtay ku sameynayeen 2 sano ee lasoo dhaafayba marka horta wax uu ku eedeysnaa oo la xidhiidha arrimaha argagixisada ma jiro arrinta uu wiilkani ku eedeysnaa keliya booliisku ay ku daba socdeen wuxuu ahaa telefoonkiisa oo ay dhaheen noo fur oo uu diiday in uu ma garanaysaa uu telefoonkii u furo taasay maxkamad ku geeyeen oo ay ku daba socdeen intii muddo ah haddana wuxuu ku joogay muxuu ahaay beel buu banaanka ku joogay marka xoogo ma garanaysaa pressure fara badan lugta waxay kaga xidheen bahalkii striking device la yiraahdo muxuu ahaay waqti waxay ku xanimaan dhaheen guriga waa inuu inta badan joogo marka arrimahaas iyo kuwa fara badan wuxuu dareemay marka intii muddo culays fara badan marka xoogo waxaad moodaysay marka in uu markuu gurigii ka baxayay uu wadadaas uu ma garanaysaa in uu maaragtay inuu dareemayay in dhibaato fara badan lagu hayo. Sheekh Daawud Guusha waa imaamka masjidka xaafadda waxa uu iga waramayaa inta uu ka yaqaano wiilkan la toogtay. Bismillahir Rahmaanir Rahiim walaalow yarka Allah u naxariistee Raage Maxamed Caabi baa la oran jiray nin dhalinyaro ah buu ahaa oo 25 sano jir ah wadankan ku dhashay 22 sano jir ah afwan oo halkan ku dhashay iskuulkii uga baxay nin akhyaara oo waliba aad fari ismaadu ah oo maskax badan buu ahaa oo dhalinyarada hadda soo kortay ragga ugu fiican ah uguna haboon buu ahaa ma garad marka midan ay leeyihiin booliisku mindi ayuu nagu weeraray wax cadeyn mu hayaan midla wadaagan cadeyn isagoo mindi wato walaalow ilaa hadda cid xaqiijin karta male booliisku body camkii iyo kaamarooyinkii ay wateen ilaa hadda waalidka iyo familka midna may tusin iyo public midna laakiin 2 qof oo mid kamida uu yahay nin cadaan ah oo 5 daqiiqo ka hor intaanay toogashadu dhicin meesha highway-ga marayay waxay sheegeen in wiilku uu si u socday degan oo aanu cidna dib ku hayn highway-ga dhinaciisana uu ku socday oo ku lugeynayay in hadda cid ama riski ama dhib ku ana uusan ahayn nin isagoo kaam ah soconaya bay sheegeen. Sheekh Daawud laakiin waxaan la soconnaa in hadda ka hor wiilkan booliisku ay xireen muddo sanadna uu xirnaa taas oo lagu eedeeyay inuu rabay inuu aado Soomaaliya si ugu biiro ururada xag jirka sida al-shabaab oo kale arintaas iyadu maxaynu ku ognahay walaalow arrin baa jirtay wiilku isagoo Brisbane Airport ama airportka magaaladan ka baxaya tigid one way ana sita Soomaaliyana u socda ayay booliisku qabteen airportkina ku xireen hooyadiisna way wareysteen laakiin waqti dheer uu xirnaa kadib ilaa hadda way cadeyn waayeen booliisku inuu ninkaasi uu u socday ama al-shabaab ama urur kale inuu u socday
way caddayn waayeen. arrintaasina waxay noqotay wax lagu soo eedeeyey laakiin wax caddayna haba yaraatee aan loo hayn oo aan ninkaa lagu xukumin bay noqotay. baaritaano ay dalbadeen qoyska wiilka oo ah in caddaymo boolisku ay la yimaadaan inuu mindi ku hubaysnaayo in kale ayaa weli socota. wixii ku soo kordhana qaybaha dambe ee wararkeenna ayaad ku maqli doontaan.